baraha bulshada iyo akhlaaqiyadka laga doonayo dadka ka soo baxaya inay ilaaliyaan saddex arrimood baynu wax ka oran doonaa ta u horeysa waxa weeye qofka ka soo baxaya baraha bulshada iyo muuqaaladaba waa inuu ilaaliyo akhlaaqduna wax aad u weyn weeye insaanka waxa qurux u yeela ma jirkiisa oo akhlaaqdiisa إلهينا أخلاق ونكسم بكو أمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق وينو ونكسم باتكو سوغانتا إبا إلهول نبي محمد نوح حسين صلى الله عليه وسلم وحيابو إلهي أدونكرو كيانين يكمل هايد إنو أخلاق ونكسم لما يستره إنما بعثت لأتمم مكارم الخلاق بنبي إلهي بوحي يصدر السيانو لما يستر أخلاق دي ونكسم إذا النبي يدو للسعودين markalena wuxuu albirru husnul khuluq samafalka wanaagsan diintu iyo dadnimaduba dhiiri gelisaa waxa weeye waa akhlaaqda wanaagsan marka in akhlaaqda wanaagsan ay ilaaliyaan dadka ka soo baxaya baraha bulshada iyo muuqaalada waa arrin waajib ah oo qofka ay u fiican tahay ummadda u fiican tahay ehelka u fiican tahay aynu ilaalino arrinta labaad ee iyadana la ilaalinayo waajibka ah waxa weeyaan cawrada qarinteeda عورضة إلا قريو وواجب إلهي بأينا فروح يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بني آدمو قرية أما قاتا قروح دينا نركا قروحة قاولان تنوافو الحمى ودا حميس بالايدا هذا ميلها هذه يتير عورضين قفكنا وي حمينيستا كي أجينا وي حمينيستا marka in cawrada la asturaa waa waajib in asxaabiya nabiga wuxuu ku yiri cawradayda maxaan qariyaa wuxuu yiri cawradaada dadkoo dhan ka qari xaaska mooyaan haddii aan cidla jooga ka waran buura ilaahay baa ku habboon buurin laga xishoodo cawrada la qariyo marka walaalayaal waa nasiib darro dadkeenna waynu la talinaynaa in maanta laga baayac mushtareeyo rag iyo dumarba isqaawin TikTok la soo fariisanayo habluha isqaawiyaan oo wiilashu isqaawiyaan oo meeshii la qarin jiray banaanka la soo dhigo inuu qofku isqaawinta ka macaasho oo lacag uu ku qaato isilaado meelaha lacagta laga bixiyo isqaawinta kaga hel iyo dad badan ku hel waxay noqon kartaa jirkiisa qofku iibsanayo marka siday ruuxa dumarka ah xaraan uga tahay inay xubinkeeda taranka iibsato oo jirkeeda iibsato tanati un bay la mid tahay waa ka xaraam marka in cawradeedii qofku soo bandhigto oo sida ay lacag ku hesho ama wiilkiiba uu ku helo waa xaraan xagga sharcigeena walaalayaal waana nasiib darro weyn marka cawrada qarinteeda halkaas islaamku ka taagan yahayo wax aad ikhtiyaar u leedahay ma laakiin waa wax waajib ah inaad qariso qodobka saddexaad aynu oran lahayn waxa weeye qofka bani aadamka ah raad baa ka hadha marka maanta muuqaalka noocan aad iska reebto adigoo qaawan adigoo qaylinaya adigoo kala kacsan oo si ah hadda raadkani wuu hadhayaa ayagu ilaahay agtiisana raadkani wuu yaalaa iyo rikoodhkani iyo muuqaalkaagaas ummadda agteedana waa yaalaayo dee waa kaa ku jira kaydka lagaa reebayo marka waxa dhici doonta adigoo aakhira tago alla istoo dhintayba inaad oo qaawanaad meeshan ka soo baxdo oo dad kula ficiltamaya ama ku xumaynaya ay banaanka ku soo dhigaan hadda waxa dhici karta adigoo toobad keenayba ama waayeelo wanaagsanaadayba in wixii sawirkaagii qaawanaa weli halkan uu yaallo qaar kugu ciyaaraya ay hor wadaan kadibna noloshuba cidhiidhi kugu noqoto marka waxa waajiba qofku inaanu record iyo kayd xun dhigin inta uu nool yahay laakiin wuxuu dhigayaa ila qofkii waari maayo war baa ka hadhaya muuqaal iyo maqal baa ka hadhaya marka waxa ka hadhaya inuu noqdo wax wanaagsan ilaahayna wuxuu wanaktubu ma qaddamu wa aathaarahum dadku amal wixii ay horumariyeen waan qorayaa raadka ifka kaga hadhayana waan qorayaa dad badan oo toobad keenay waxay la ildaran yihiin raadkii xumaaya ay reebeen iyo rikoodhkay dhigeen sidii looga masixi lahaa lacag bay ku bixiyaan way kari laayeen marka taana walaalayaal waynu baraarujin lahayn qodobka afraad aynu baraarujin lahayn waxa weeye dadka sida ay isu qaawinayaan
ama sidaa lacag ku doonaya ama sidaa ku maadaynaya inaan la daawanin oo cawrada waxa la yiraahdaa haddii ay live tahay iyo haddii ay tahay mid sawir ah mar walba waa xaaraan in la eego waxaan oo live oo ku muuqdaa sidoo xaaraan u ah bukan sawirkiina xaaraan u yahay marka indhuhu waa amaano maskaxdu waa amaano xubnaheennoo dhami waa amaano ilaahay uu nagu aaminay subxaanahu wa tacaala iyo nicmo uu ina siiyey marka si aanu nicmada inogala noqonin nuqsaan iyo nafsina aanay inooga noqonin waa inaynaan xaaraanta ku eegin qofka isagu sidaa isu qaawiya waa inaan la daawanin oo la eegina laga daaya isagana danu ma aha oo lugooyay ku tahay dadka kale saa u daawanayana iyagana dembi iyo ceeb bay ku tahay intaasaynu isu sheegnay innagoo aan uga jeedin fadeexadayn iyo xumayne laakiin u danaynayna walaalaheenna iyo ehelkeenna iyo ummaddeenna oo kelmadda wanaagsan waynu isku leenahay in la qaataana waa waajib waayo qofka wax garanaya xujada saarani waxa weeye dadka inuu xaqa u caddeeyo qofkii loo caddeeyeyna waxa waajib ku ah kol haddii loo daneeyo lala taliyey inuu qaato ilaahay waxaan ka baryaynaa inagu anfaco aadna waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.